الرحيم حاجة waxaan kala hadlayaa marxalad yar oo dhawaan soo baxday marxaladda cid baa iska wadata dad bay doonayaan inay kala dilaan leeyahay lagu kala dhiman maayo reerka habar jecel la yiraahdo waxaanu nahay Allah ayaan is weyn baanu leenahay dadku waa dad wada socda xagan waxaan ka sheegayaa iyagana aan fariin uga dirayaa ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo labadii oday ee odayaasha ugu qiimaha badnaa ee waqtigii Axmed Siiraayo kursiga doonay hareera taagnaa baan ku soo hadal qabsanayaa maanta waa Maxamuud Dowla Dahable ilaahay ha u naxariisto اسكارسه ilaahay ha u naxariisto ina Dowla Dahable nimankaas Siiraayo waxay oran jireen miyaad baqaysaa miyaad warwaraysaa annaga ku agtaagan laakiin may oran jirin xisbiga nagu wareeji Siiraayo aan meel bahelin uma isii hanjabi jirin marka waxaan leeyahay reerkan wada soconay fariintaas aan u dirayaayo intii odayaashaydu Siiraayo ku oran jireen wanaag ahaydun deynuguna Muuse intaas ku dhaho inta aan noo dhaafina de oo inankii waxba helinba taasi qodqodina hawsi hanjabina ya intaasaan ku dhaafaya qaar baa xumaan doonaya soo dhigaan yiraahdaan Maxamed Xaasha dadkan soo kiciyay war Maxamed Xaasha waa wasiir wanaagsan oo miskiin ah oo ina wanaagsan wax shaqo ku leeyahay ma jirto isagii Muuse baa qolo doonaysa inay colaad dhex dhigto qolada dhex dhigaysana waxa weeyaan waanu ognahay Maxamed Xaashin hadaanu ogeyn annaga taabsiin doono u sheegi doono waxaan inta ku dhaafayaa arrinaa maalimahan socday oo isaguna ahaa garsoorka wax markuu xukumo oo dadka uu gar qaado laga sugi jiray garsoorkii dalka aan gar qaadin ayaa cid iska leedahay shirkadda Prem annaga ciidan u dirayna waan xukunay marka waxa ka dhigantay garsoorkii baa burburay wadalku sharci buu leeyahay dalku waa saddex sharci dashineed weeyaan waa tistor waa sharci dajintii waa baarlamankii iyo xukuumiga fulintii xukuumaddu waxay wax fulisaa marka garsoorku wax soo xukumo haddaba garsoorkii aan waxba soo xukumin shirkaddan Prem in maalin walba ciidan arrimaha guduhu diraan waa xaraan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne adoo dhalinyaro 20 jira oo dawladda Soomaaliya ugu sandheer ayaa diiday dulmiga dadkaaga lagu hayo geed hoos diin jir aad ka doorata haddaba ragga qaar maanta xukuumadda ku jira haday dadkii dulmi ku hayaan madaxweyne bar hoos u eeg anu Axmed Siiraayo waxaan aqaanaa nin dulmiga nacab nin dadka codku ugu faraha badnaa la siiyay aad baan u amaanayaa waliba waqtiyadan maanta lagu jiro aanu boqor baan hay aan caytamayn ma caytamo reeraha ma weeraro dadku maanta dhibicii u horeeyay baa u daay ma jecel inaan war xun sheego inaan wanaag sheego in dhahdo war dulmiga ka fogaada shirkadda Premna waa la dulmaya inaan ka dulmayana ee waxaan wadana waxa la yiraahdaa Cabdicaziis Dhulcun waa inaan xildhibaano baarlamaanka ku jira haddaba Cabdicaziis Dhulcun han fasilo Cabdicaziis waa ninkii barnaamijka laga sameeyay shantii sano iyo sharkii dhacay Cabdicaziis waa nin ku xidhnaa madaxtooyada waa nin mashaariic badan qaatay waa nin aan mooshin keenin baarlamaanka dadku aanay aqoon intaasaan ku dhaafay Cabdicaziis Dhulcun waxaan leeyahay ciir Sacad Muuse ciyaar laguma dhamo Cabdicaziis Dhulcun Prem in la qaada waa umaamadayda la qaaday wassalaamu calaykum